السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي قالقة وين سلامي السلام عليكم رمضان وناكسن رمضان كرمضان كيسة فرحات بشبش يبرواق الله نقول كارسيو عماش الصون كان الله نجا أقبل الصون كأي صلاة دب الله نجا أقبله وانا جينا الله بديه حمانتين الله يريه وإن سلام على من تمر البجوكتين وحيدنا يسود وهذا جنا الكين والصومالي مذو فلما هدا يقول عصب تايس بسكراب كأي صار كمبل الكفرس عيل السعودية وحول بقول سوق اليوم aniga magacayga waa shugri janaalkayga waa soomaalida midow mar walba waxaan ka hadlaa wixii markaas arrimaha bulshada quseeya ayaan ka hadlaa janaalkayga waa noocaas haddii aad danaynaysid arrimaha bulshada waxaan ka codsanaa subscribe kana iga hilmaamin leegta ii saartid wixii talana commentiga igu soo reebtid insha allahu tacaala maanta waxaan ka hadlaynaa single motherka waxaan ka hadlaynaa single mother marka aad tahay hooyo single mother waxaa la dhahaa hooyo caruur haysata ama garoob ilmo haysata la dhahaa marka aad tahay single mother amba aad tahay garoob ilmo haysta aad tahay oo nin intuu soo guursaday caruur dhashay ninkii kala tageen caruurteedina haysata markii aad tahay ayaan rabaa inaan wax yar ka dhaho haddii ilaahay yidhaahdo waayahan dambe waxaa soo batay wax la dhahaayo hooyo baa caruur haysatay nin bay guursatay ninkii baa ilmihii xumeeyey ninkii baa ilmihii gubsaday ninkii baa saan yeelay waxyaaba badan oo saas ayaa jiro marka aan soomaalida nahay dhexdeena marka waxaas rabaa inaan ka hadlo haddii ilaahay raalli ka noqdo hooyoy haddaa caruur haysatid gabar yar adigoo ah intaa nin guursatay caruur dhashay ninkii kala tagteen calafkii idin kala dhamaaday caruurtaadana aa haysato horta idin kuga hambeelanayna dumarka Soomaaliyeed meel walba joogtiin single motherada sida sharafta badan iyo quruxda badan caruurtiina oo kursatiin amba u soo saartiin caruurtiina waa in kaga mahad celinaya hambaliyaan idin leeyahay hambaliyo ay haweenkiin soo marinay marka intaas ka gudba ka bacdi waxaan leeyahay haddii aad haysato caruur tahay gabar wali yar aan guur ka maarmin haddii aad tahay laba dad ayaa ku furan si loo yareeyo dhibaatooyinka soo noqnoqda ee ah gabar baa adeerkeed kufsaday gabar baa adeerkeed saan yeelay adeerkeed caabiyada qaba baa luuqaan la galay wuu dilay wuu rafaadshay intaas oo dhanba qaasatan kuwa qurbaha jooga ayaa ku badan arrintaas marka waxaa jiro caqabadahaas qaab noocee ayaa uga gudbi kartaa waxaan ku siinayaa wixii tala aniga aan ku dhaamo waxaana rajaynayaa inaad baroobaysid kuna najixi doonto haddii ilaahay raalli ka noqdo horta anaga dumarka Soomaaliyeed haddaan nahay markii nin intaan guursano caruurta nagu furan nin kale aan guursano ninkaas kale waxaa la dhaqanaa sida inuu ilmaha oo dhalo oo kaleeto waxaan dhahnaa anaga doon rabo waa inuu ilmahayga rabaa waa sax ninka hadduu adigu rabo ilmahaaga waa inuu rabaa laakiin meesha waxaa ku jirto ninkan ilmaha inuusan dhalin waa inaad ku xisaabtantaa waa inaad dariiqad u kala samaysaa ilmahaaga iyo ninkan hadduu ninkii ku caawiyo oo ilmihii wax kaa siiyo amba si kale kugu caawiyo amba ilmihii si fiican kuula koriyo oo nin wanaagsan noqdo falilaahi alxamdu laakiin xakameyn samee oo ilmahaaga iyo ninkaa isku fasaxin tusaale waxaa arkaysaa gabar nin qabo oo ilmo kale haysata oo dhahaysa ninkii waryaha ilmaha ii soo qabo cunuga xafaayad iiga sii fur cunuga cuntada iigu kale waxaa ku xisaabtantaa ninka ilmaha muusan dhalin ilmaha ninka dhal wuu ka tagay just adiga ayay waxay ku yihiin marti amba hooyo ilmaheeda haysanaysa marka ninka adiga ku yimiday qof walba oo koonkaan saaran si walba u wanaag badan yahay si kasta uu sharaf badan yahay si kasta uu yacni wax uusan asagu lahayn sida uu u sameeyay amba u qaabil way adag tahay marka waxaa rabaa nin wanaagsan hadduu ku noqdo oo ilaahay nin wanaagsan kaaga dhigo oo adiga ku caawiyo garabkaaga tahay hadduu ilaahay kaaga dhigo mar walba waxaa samaysaa ilmahaaga iyo ninkan waxaa u kala samaysaa xad u kala sameey xuduud u kala sameey oo ha isku fasixin ilmihii iyo ninkii ha isku fasixin oo ha ka dhigin ninka inuu ilmaha asaga dhalo oo kaleeto ha ka dhigin waa nin wanaagsan waa sax wuu ku caawiyaa laakiin waa inay xad kala yeeshaan oo ilmahaaga mar walba adiga aa isxijisid waxay u baahdaan adiga aa u samaysid asaga wixii caawinaadana uu kugu caawiyo oo ka dalbatid sidoo kaleeto adiga ilmahaaga ninkan ha u dhiibanin gabaray ninka adiga kula nool ilmahaaga ha u dhiibanin yacni nimanka dhan mooda xumo nimanka way wanaagsan yihiin boqolkiiba 90 ragga Soomaaliya waa niman wanaagsan 10 amba 5 laga yaabaa boqolkiiba inay ku jiraan ragga xun oo noocaas u dhaqma laakiin adama kala taqaanin ma ogtahay kan kii xumaay miya kii wanaagsanay miya adama kala taqaanin marka waxaa kugu habboon haddii aad caruur yar haysatid inaad caruurtaada iyo ninkan xad u kala samaysid oo ilmahaaga aadan ka tegin ninkan aad uga tegin haddaa meel aadaysa dana kaa soo gashay ilmahaaga qofka inaad uga tegatid amba ka haysatid oo meesha u socota uga haysatid marnaba ha uga tagin ilmahaaga guriga dhexdiisa ninka asagoo joogo kaligiisa caruurtaada ha uga tagan kama wada ninka inuu xun yahay kama wada ninka inuu saas yahay laakiin adiga si qalbigaagii oo kugu noqdo qalbi degan oo idmaan ah oo macnaha safe ku noqdo ilmahaaga walaasha u dhiibo saaxiibada u dhiibo inta yartaa saacadaha yarkaa maqan tahay asagana culays yeesan ku noqon oo nafis ha dareemo adigana caruurtaadii meel safe ah ku joogaan amba haddaa rabta iska wada ilmahaagii oo gaariga saaro horan u kaxayso meel alla meesha aadaysid ha ku raacano haddii labadaas aaweysid way adag tahay inaa ilmahaagii iyo nin adiga shalay kusoo guursado oo beri hadduu rabo iska bixi karo aa isaga tagta way adag tahay aad waa adag tahay
hooyo walbana waan u sheegayaa ilmahaaga ninkaaga wanaagsan yahay sax waa nin wanaagsan laakiin ilmahaaga cidna dusha ha ka saarin aabihi dhal hadduu kaaga tegay oo adiga aa korsanaysid ilmahaaga waxaa ku dadaashaa 90% mas-uuliyadooda waxay u baahan yihiin haysmadooda in adiga isku qabto hadduu ninka asaga intuu garto soo istaago wuxuu ku qabto walaala jira waa laakiin ha ku qasbin sankana ha ka gelinin hana maxay ahayd ku kadeedin ilaaba inuu ilmahan ninkan haayo uu qabto oo xafaayadii ka bedelo oo cuntada u kariyo oo wax walba sameeyo ha ku qasbin because meeshaas waxaa ka dhalan kara nacayba ka dhalan kara sorry meesha waxaa ka dhalanaya nacayba ka dhalanaya waxaa imaanaysa qofka wuxuu dareemayaa in la qasbaayo oo mas-uuliyad asaga uusan lahayn lagu qasbaayo marka waxaa sameynaysaa ilmahaaga adiga ha ku ahaadaano wax adiga mas-uuliyadooda aad qaadid ha ku ahaadaano asagana hadduu ku caawiyo walaalka jira falilahi alxamdu sidoo kaleeta haddii aad taa hooyo caruur waaweyn haysata tusaale ilmo waaweyn wiilal amba gabdho 10 sano kor u dhaafay oo 12 jir 15 jir 16 jir 18 jir 17 jir ilaa 20 jir inta u dhaxaysa hadaa haysato caruurtaada ay yihiin 13 ka bilaaw waa ilmaha meesha ku koraadsadaan ilaa 20 inta u dhaxayso amba 14 amba 15 ka bilaaw wixii ka koreeya hadaa haysata caruur saas ah waxaa sameynaysaa ilmahaaga iyo ninkaaga haba istusin maqlaysaa ilmahaaga iyo ninkaaga ha istusin ninkan adiga waa heshiiseen waxaa sameyn kartaa maadaama adiga aa caruur haysato oo taa hooyo caruur haysata aad tahay waxaa sameyn kartaa meel kale ku ballami kartiin waa isku baahanaa caawa inaan kulanaa rabnaa hotel taga guri kala samaysta laakiin ilmahaaga dhexdooda nin ha keenin gabaray hadday ilmahaaga waaweyn yihiin waaye oo ilmo wax fahmaya ay yihiin ha iska keenin because tilaab walba aa qaado waxay u fahmayaan inaa ninka ka jeceshaa tilaab walba oo qaado waxay u fahmayaan inaa ninka u ronaanaysid ayagana aad nacaysid because waxaa laga yaabaa wiilkaaga aad 12 jir yahay inuu rabo soo asaga rabo inuu u noolaado laga yaabo ninkan adiga yani xaaska u tahay inuu dhibsado ficilada wiilkaaga uu yiraahdo waxaas ha sameyn wiilkan uu arko caburin inay tahay maadaama ninkan dhalin inuu caburinayo uu arko oo meeshaas ka bilaado haddana khilaaf kale sidoo kale gabadhaada hadday gabar weyn tahay iyadana sidoo kale u arki kartaa iskuulka kusoo daahday amba meel kale aaday amba waxbaasi noqday amba guriga yartaa seerta inay ka samayso waxaa laga yaabaa ninkan adiga ku qabo inuu dhibsado gabadhaas ficiladeeda uu la hadlo maago amba wax dhaho gabadh inay u fahanto inuu caburinayo qaasatan dadka qurbaha jooga waaye ay u fahanto inuu caburinayo marka waxaa sameynaysaa ilmahaaga iyo idagaan kala qari ma fahmaysaa waa kala qarinaysaa banaanadaas kusoo kulma banaanadaas kusoo sheekaysta guriga hadduu lacala imaanayo xataa ha u yimaado nin caadiya oo martiya oo ilmaha soo booqday ilmihii asaga hadoora wejiga jecel ha ka samaysto markay ilmihii asaga banaanka ayagoo kala jooga ay isbartaan oo isjeclaadaan oy dhahaan hooy ninka anaga rabna noo keen ay ku dhahaan ila ilmahaaga waa ilmo waaweyn waxba fahmi kareen markaas ninka u keen laakiin ninkii maanta baratay waa heshiiseen guriga ku heshiiseen calaadul guriga keentay ilmahay ninkaa isfahmi waayo ma fahmaysaa meeshaas waxaa kaaga imaanaya mashaakil waxaa laga yaaba adiga ninka inaad rabto oo jeceshahay ilmahaagana dee waa jeceshoo kama maarantid marka inta ilmahaagii ninkaagii inta iskhilaafaan dhibaato iyo mashaakil aad kala kulmi lahayd adiga iyo ninkan banaanka marka hore isku soo barta ilmaha ha u yimaado ha u sheekeeyo hadii ha u keeno asaga weji ha ka samaysta caruurta asaga caruurta ha isfahmaano hadday caruurta ayaga isfahmaan oo ninkaas iyo ilmahaagu ay isfahmaan oo ilmahaaga ninkaas jeclaadaan ayaga waxay kaa codsanayaan markaas inaad u keentid waxaa ku dhahan hooy ninkaan noo keen guurso adigoo ku jecel yahay aniga wuuna jecel yahay waa ninan saas waan u baahanaa noo keen ayaga markaas kaa dalban kara laakiin hadda waxaa arkaysaa fiir gabaraa nin caruur haystaa nin ay soo guursanaysaa ninkii ilmahay dhex keenaysaa 2 maalin buu ilmihii wadwada ayaa adeer abti ayaa markaas loo joogo ninkii hooyadaa kala tagaayo waa baxa ninkii ilmihii waa isbarteen wuu jeclaadamo wuu iska tegay nin kale cusbaa keentay marka ilmahaaga waagi baryo intaa ka bari lahayd nin cusoo dhida abti waayo hooy abtigi shala caawa abtigi shala wuu tegay abti cusub waaye hayee 2 maalin haddana sanaduu joogo kaleeto haddana waa isku dhacdeen haddana wuu baxay nin kale cusub haya hooy kan muxuu yahay waa abti abtigi shala caawa abtigi shala wuu baxay يعني حوالي المال نفترض إن يجوا يكونوا قناة ساتاس مركب وحنا والإسقاء because جورك يفرينك بإلهي بابنية دلاقهم وإلهي بابنية نكاحا إلهي بابنية مركب إيمان كرتاينا مروى البنين إسفاهم ويصير أو كلا تدو حاليا وصدق أقول إنها مرتد أنت علمها قبل جوكتد صدق هذا يقول مركب الماء يكون هذا مالك زين عصبك أنت يقول أنا نينك مركب برتاني إسفهمان إيش على هذا أسكت على نينك كلا تكتين المية كويدين هاي أبتي عاوي كلين هاي أبتي واتجي أبتي عصبان كان هذا عيانا هذا الجوك صار الله بس 6 سنوات اسفهم ويسن abtiga wata abti cusubaan keen ilmaha hada waxa ay ku noqonaysaa niyad ku noqonaysaa ana horan waa arka gabdho badan oo saas ah marka waxa sameynaysaa gabaray ninka banaanka ilaahay kala mara waa isku baantii meel ku balama ku soo sheekaysta
kusoo baashaala guriga ha yimaado ilmaha guriga yow seexanin ha yimaado ilmaha hala sheekaysto ilmaha ha isbaro ilmaha ha u qoslo banaanka ha geeyo meel ciyaarsiis ha geeyo haddii ha u keeno ilmihii asiga waxaa meesha ka dhex dhalanaayo isfahan because oo arkaysaa ninka inuu yahay nin ilmahaaga rabo oo ilmahaaga jecel iyo inuu yahay nin ilmahaaga aan rabin oo ilmahaaga dabeecadooda ay iskeenaynin hadday kuusoo baxdo inaysan dabeecadda ilmahaaga ninka iskeenaynin banaanka kala maraysa markaas because guriga kuuma soo gelin ilmahaagii ninkaana ismay baran kumayna arkin ninka inuu ku qabo ilmahaagii ilmo waaweyn waaye kumay arkin because waxaa malayn qof caadiya oo saaxiiba qofkan farandiskayga waa hooy waan kala harnay waa caadi laakiin ninka waa ifuray nin cusbaan keena waa ifuray mid kale cusbaan keena ilmaha xataa waxaas ay ku waalanayaan marka ani hadda gabar waxaa aqaanaa 4 guursata ilmaheen haysataa nin walba way weydiiyaan ilmaheeda hooy abteebal aaway abteebal ahaa abteebal waa ismaha meen wuu baxay hooy marka waxaas laga qurux badan yahay ilmaha dadka qofkan farandhisaana saaxiib caadi ah abtigin waaye waxay u baranayaan inaan farandhis caadi tiin oo abtiga yahay caadi ah guriga saas u yimaado ilmihi ayaga jeclaanaya dad waji ka samaysto hadduu ka samaysan waayo ilmihi waji oo ninkaani ilmahaaga aragtin is dabacad ahaan isqaabilaynin waxaa ku banaan ilmahaaga on kaa ogaanin sirtaadii inaa banaanka ku kala tagtiin waa ardullaahi waasica markaas mid kale haddaa rabto soo bar caadi farandhis caadi waaye abti safar iska jira waa tagay wuu guursada naa kale guursada waa noo imaa waa dhihi kartaa adin biayi dariiqa marsama u bixin kartaa laakiin kan way qabaa abti waaye qolka isla galaysin waa isla seexanaysin waa idin jeedaan ilmihii wax walba ilmihii way arkayaan beri way fura mid kalaan keen way fura mid kalaan keen way fura ilmihii xataa dhibaatay ku noqonaysaa marka waxaan kula talin lahaa hooyo walba ilmaha haysata oo rabta inay nin kala guursato marka hore ninka inay banaanka ku haysato aysan ilmaheeda horar ka dhex keenin degdeg aysan ilmaheeda dhex keenin ilmaha ninka ay isbartaan markay aragto ninka ilmaha inay isdabacad keeni karaan oo isqaabili karaan kabacdi inaa u keentid ilmaha ninka kabacdi waa caadi dad isfahmay oo isyaqaanay noqonayaan sidoo kaleeto ilmahaagana ninkaaga ku daynin ooda ka dhigin sida inuu dhala camal sida inuu maxad wax walba asaga aad ku qasabtid wax walba asaga aad dusha ka saartid wax walba asaga aad raad u samay ilmeyga daa u sameyn ilmeyga waa iska baxaysaa dad waxaa arkaysaa ilmeyga biil u dira daa u dirin waa ay furaysaa yani waxaas camal xoogaa waa laga fiican yahay because qof laba qof aa isku qasbaysaa oona israbin haddii qofkan ilmaha uu barto oo asaga nin fiican uu yahay ilmahan uu rabo uu yahay ayagaa isbaranayo adiga waxba u weydiin buu asaga siinaya markaas hadduu qof fiican oo garashalay uu yahay adigan u weydiin buu dhibaato walba iyo dhib kasta ilmaha ku yimaado uu kula qaybsanaya marka waa idin kaga digayaa ilmaha inaan niyad jab lagu ridin oo maalin kasta nin cusub aan loo keenin maalin kasta nin cusub aan la barin ilmihii niyadoodii maskaxdooda la ilaaliyo because ilmaha waa ammaano ilaahay noo dhiibto waaye si wanaagsan in loo koriyo ayay naga mudan yihiin nagama mudna in anaga saan rabno mar walba kula dhaqano waa taladayda intaas tala ahaan ayaa idin siinaya single maadarada amba hooyooyinka caruurta haysta amba garoobada ilmaha haysta taladayda waa intaas hadday idin qanciso waa kaasa asxaabta videogayga daawa doonto fadlan haddii aad talo qiso tusaalo intaba aan noo hayso commentiga noogu soo reeb insha allahu tacaala waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan wanaagsan